بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kastoo aad naga daawanaysaan aad ayaan idin salaamayaa. waa anigu awalaashiin isku filan cox dhammaan daawashadiina sidaan hore idinku sheegaba aad ayaan idinkaga mahad celinayaa kun iyo kow jeer. mar walbana waxaan jecelahay codsigiina inaan oofiyo. in badan bay gabdhaha walaalahay waxay soo weydiinayeen guriga sideen ku carfin karaa anigoo aan isticmaalin uunsi ama catar iyo waxyaalaha la midka ah. sidaan ognahayba wax walba marka la sameeyo waxba laga sameeyaa. carfisooyinka guryaha lagu carfiyo waxaan malaynayaa alla rafiyo inay og yihiin ama kuwa badan oo kamid inay og yihiin waxa laga sameeyo. qaar waxa laga sameeyaa wax la yiraahdo qorfahan oo kale cinnamon baa laga sameeyaa. waa qorfaheena shaaha ku darsano. qaar waxa laga sameeyaa liin macaantaas aan cunno saa u jeedaanba. qaar waxa laga sameeyaa apple. qaar waxa laga sameeyaa waxa kan oo dhahay mango cambaha ayul fruit aynu cunno inta ugu badan waxaa laga sameeyaa liinta xitaa waa laga sameeyaa liin dhanaanta. waxaa laga sameeyaa waxyaalaha lagu carfiyo ama xitaa barafuunyaasha aynu ismarino chemical kala lagu daraa laakiin waxaa laga sameeyaa cuntada aynu cunno. okay marka runta markaan idin sheego xaqiiqada idin sheego habeenka aan doonayo ama maalinta aan doonayo kal iyo laab gurigayga inaan u carfiyo this is what I use. carafta waxaa ka daran oo aan caraftiisa ka jeclahay guriga waxay soo gelisaa fresh air. cuntooyinka la kariyo waxaa ugu strongsan canjeela xabashida suugadeeda, canjeera Ethiopiaanta suugadeeda, basbaaska iyo basasha marka la isku shiilo waxaan ku dhahay guriga aan la geli karin kaas camalka waxa lagu kariyo ugu daran. waxaa waaye marka daaway macaano marka waxaa waaye alaabtan 100% guarantee oo ku soo sameynay way kila garaysay caraf fresh air malaysid roob guriga inta ka da'ay saxa camal ay sameynaysaa. fadlan biyaha u badi. hadda biyaha dabka ii saarayeen ovenka ayna geynaya alaabtaan aan rabay inaan idin tuso. alaabtaas ay isugu karkaraysa faniilaha aan cuntada ku darsana iyo keegaga iyo waaye kan maasha Allah dhalada dheer aan soo iibsadaa. maalinka markaan gurigayga dhaka siiyo alaabtaasaan u daba mariyaa cuntada. waxaan ku dhahay alaabtaan markay guriga cuntada ka saadho oo urka ka saadho oo adoora fresh air camal soo geliso ayaa waxa loo baahan yahay daawunsi shidanayso uunsi yar oo dabka u gaaban yahay oo maasha Allah aad catar yar oo jecesho fudud oo khafiif ku dhibcisa inay guriga ku shidatid. laakiin inta saaxiib adina cajala naga duudaysaa. laakiin ba meesha taalo hadaa guriga cunto ku karisay ama hilib ari ku karisay ama suugo ku karisay atraah uunsi u shidaaya subhanallah tough life waa. marka maasha Allah tabarakallah always waxaan jeclahay codsigiina inaan oofiyo. gabdho badan oo walaalahay ayay isoo weydiiyay marka ay hob inaad caaw ku enjoy garaysaan ama ku farxadaan wixii aad iga rabteen maadaama ay keenay moorna way idin soo gelin doonaa kan kaliya kuma ekaan doono. halka cuntada lagu cuno oo kale haddii aad ka dareento gurigaaga xitaa cayayaan yar yar sida mooska bahalka ka dhasho fruit fly la dhaho kale hadaa ka dareentid ama ma aragtay adooraha guriga aad jeclaan weysid khalkoo kale xitaa weel intaa ku shubtay sinkiga geesihiisa talaagada gudaheeda ofinka geesihiisa waa dhigi kartaa. gurigaaga smeelkiisa wuu bedelayaa, hawada guriga wuu bedelaa. alaabo badan waxaa jira hawada guriga bedela oon uunsan ahayn catarna ahayn. marka insha Allah waxa waaye tii ugu horeyso inii soo geliyo tan moorna waa idin soo gelin doonaa insha Allah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala cimri caafimaad isku keensiyo. haddana ofinkaynu aadaynaa maasha Allah. biyahayga dabka ii saaraa way karkari doonaan insha Allah. way si fiican uma karkarin. waxaan ku ridayaa alaabtan waxaa kaloo ku jeclahay digsiga saanac ugu karkarina waa ka daadina waa dhaqay cuntaa ku karsane. gabdhaha uunsiga digsiga ku karkariyo waxaa jiro digsiga hadaa uunsi ku karkarisid bes khalaas waay mar dambe ma arkino uma isticmaali kartid digsigaas. laakiin alaabtan waa cunto waa ku karkarina hadhow markaad alaabtan iska daadisana maasha Allah tabarakallah digsigaaga bartiya ka isticmaala hooyo macaan oo gubani bismillaahi. marka maasha Allah haddana waxaan ku darayaa carfisada maxaa la dhahaa faniilaha. I love you. okay ana wiil yara meeshaan saysana marka iskaga qiyaasane xoogaa baan ku daray. qorfaha inaa u badisidna muhiim waaye maasha Allah. liinta laba nacfiilay waaye hadda aan intaan jarjaraan ku riday. laakiin liinta waxaa sameeyaa markaan ilmaha u miiro kale qolofteeda ma tuuraysid digsiga dabka ku saare maasha Allah. laba nacfiilay waaye marka carafteena hadda waa u jeediina u maleynaa intuu ka karkaraya idin la sugaa haddana maasha Allah. oo habku ma siin karayso macaano
biyahani shax camal ay u ekaadeen qorfihii iyo liinta markay karkaranaya faniilaag marka weli si fiican uma karkarin. Let's boil them. carafta already wallahi maasha allah guriga dhan already waa ka dareemayaa maasha allah tabaarakallah. marka soo tijaabiya feedbackana hoos iigu soo qora markaa soo tijaabisaan walaalo nagu khibrad dhaama hadday jiraan saan oo kale waxyaalaha neutraliga oo guriga lagu carfiyo hoos noogu soo qor walaalahan la share gareynaynaa maasha allah. inta si fiican u karkarayso weli waa ila joogaysin. Stay with me. maasha allah ilaa usaasa noo karkarin rabiyow. cajalkeennii waa isku soo dhammaaday waa u jeediin alaabta se u karkarayso maasha allah tabaarakallah. caraftana waxaa lahaa qofkii agtaagan basaa sheegi kara. soo tijaabiya isoo duceeya hoos iigu soo qora sida ah ka dareentaan ama sida aa u aragtaan insha allahu tacaala. intaa mar labaad isku arki doono ama mar kaleeto hawada anoo wax wanaagsan idiin wada sidaa horeba idiga barateen waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. subscribe-kii taamsabka xagiina waaye.